Muslims are organized there. If you book in an hotel during Ramadan period, you better go there during Ramadan. They will not charge you for the evening iftar. It's free. Free and fantastic food. You see, I had to add about, I don't know how many kilos myself. Very sweet food, and so I wish all Muslims everywhere they are good and happy Eid Mubarak. Thank you. Seems like you gained a little weight there. Yeah, in the Gulf. The food was good. Go to Sana'a in Yemen. Go to Riyadh. Food. Okay. Francis Atwolio soo hayesh. Ninkan qofkii yaqaana yaqaano waa ganacsade caan ah waaye Kenya laga yaqaanaa Francis Atwoli. War ninkii television dhan la soo horfariisiyay waxa la rabay inuu falanqeeyo arrimaha siyaasadda madaxweynaha ka hadlo arrimaha ganacsiga ka hadlo saaxiibka dadkii wuxuu la soo horfariistay Kenyankii inuu qishku waxa waaye wuxuu taagan yahay xilliga Ramadaanka iyo ciidda markay u dhowdahay wadamada carabta hala aado dooxa hala aado jidda hala aado maka hala aado usoo dhijiyay dadka sanca hala aado boqdisha hala aado wadamada carabta wuxuu la yaabay mataqaana Francis Atwoli wuu safray wadamada carabtu tagay xilli Ramadaan timir ordayso iyo sambuus ordaayo aba loo keenaba soo meel iska fadhiyo saxka uu yaabay ilaa hadda ama kaagu meesha la fadhiya asoo meel iska fadhiyo wadamada carabta xilli Ramadaanka bac ordayso oo timir yar iyo sambuusko iyo burko iyo alaabto yar yar ay ku jiraan ma arkin oo halay waa kaasa sheeqo afur saxibka television soo fariist wuxuu taagay dabayo xilliga Ramadaanka hal aadu taagay wadamada carabta ah aniga waa soo dhargay wasta taabana markan wuxuu taagay hilba uu soo kordhu taagay soo cayil cuntadu dhahay abo macaan food markano warnikii dhibaato weyn u soo jiiday Kenyaanka gaalada ah oo qish hadda kadib waxa laga yaabaa masaajidka isbaahisiga safka hore iyo safka dambe iyo safka saddexaad Kenyan inay saan ka soo noqdaan laga yaabaa dadka waa is dhigeystaan ogow iyaga dhibaatada haysto waxa waaye markay kaniisada aadaan email isku diraan kaniisada markay aadaan ee dukanayaan ayaga email isku diraan emailka waxa lagu dhaabad qaara emailka waxa lagu dhahaa wara Francis adiga waxa keentaa bataatiken adiga heblow hilibkeen marka iyaga wax free la ma jirto lacagna waa iska qaataan fiiriya kaniisadooda lacag la iska aruuriya cuntane waa qasab in adiga keentid xariifka meesha soo istaagay pastorka ma kaftaba wala pastor wala Ingiriis ninka dujiyo macna kaniisada markuu dadku soo hor istaago asaga lacag la siiya imaamadeen camal maaha imaamadeen anaga waxu ma siino walaadadeen wana soo hor istaagaan waxaas masaajidada wadamada hadda NGO waa iska dhab laakiin ku Soomaaliya wallahi bila imaamada wax ma siiyo laakiin meeshan wadamada aan imaanay kaniisadooda lacag la iska aruuriya ma ahad walba qasab way haddaadan lacag dhiibeenin kaniisadaas ma imaanaysid taageenay fad cuntadana free ma aha marka ninka Francis Atwoli waxa waay ninkan dhiiqo lugaha noo gelin rabaa ilaan anaga ma ogtahay dadka muslimiinta ah markii la soomaayo waa la isjecel yahay lacag la isku laabaa qofka masaakiinka ah oo aan afursanad Soomaaliya waa aragteen waxyaabo cajiibka ah hadda xitaa gaalada ay hadal hayaan waxa kamid ah xilliga Ramadaanka si la isku caawiyo ma aragtay Soomaalida Australia joogto Mareykanka joogto lacag dirnaa dadka la afuriyaa ayaga wallahi bila ma yaqaanaan waxas wiligaa Allah ma maqashay kookastaan miskiin oo tuule hebel ku nool wax la isku soo darto wiligaa ma maqashay ibikad ma dhicin saxibka Francis Atwoli marka waa baxri saxibka wuxuu taagay food u taagay cuntadooda macaan waay waa lagu cayilaa free waa taagay free meesha aadid waa soo dhargay taagay ninkii odayga ahay oo la rabay siyaasadda iyo ganacsiga inuu ka sheekeeyo oo television weyn soo horfadhiistay weli dhan uu mashquuliyay waxa uga baxay abo dadkan muslimiinta caadi ma aha uga baxay cunto macaan oo free ah iska kaasoo agdhiga Ramadaanka soo socdo waa arki doontiin aniga Kenyan iyo Ugandese iyo Tanzanian kaasoo horeeyo isbaasi iyo maka